waxaan rabaa mar kale inaan ka hadlo mowqifka madax xisbiyada qaran ee war-saxaafadeedii berihii lasoo dhaafay ay soo saaraysay iyo kuwa ay soo saarayso maanta soo saartay maanta inaan mar kale aan baahiyo ballaariyo u sheego dadweynaha Soomaaliyeed xaaladda dalka iyo maanta waxa muhiimadda asalka ah ay tahay oo maanta oo diiraddu ay saaran tahay sidaan marar badan oo hore aan ku celcelinay oo aan u sheegnay waxa maanta muhiimadda koowaad ee dalka siyaasaddiisu ay tahay waa doorashadu waa xaaladda maanta dalka ka taagan midda ugu muhiimsan muddo koobanna leh oo aan iska jiri karin amni darrada waan haysataa mudday soo jirtay dowlad dhisidda qaybaheeda kala duwan oo dhan mudday soo jireen wayna sii socon doonaan haddii aan la yiraa laakiin arrinta doorashadu waxay u tahay muhiimad dadka Soomaaliyeed waayahan dambe waxaa la horumarinayay si tartiib loo horumarinayay dhaqanka muxuu ahay dimuqraadiyiinta dalka dimuqraadiyiinta dowlad dhisidda mustaqbalka Soomaaliya si uu yahay dowlad xooggan oo dimuqraadi ah oo dadku ay raali ka yihiin ku shaqeysa himilooyinka iyo higsiyaasha dadku ay leeyihiin noloshooda iyo jiritaankooda maanta marka waxaan leeyahay muhiimadda koowaad aan leenahay waa taas Soomaaliya haddaan nahay waxaan aad iyo aad uga xunnahay madaxda xisbiyada qaran haddii aan nahay in hoggaanka dalka uu ku fashilmay arrintaas inuu xaqiijiyo oo dadka u dhowro wixii ay ku heshiiyeen dadka Soomaaliyeed iyagana lagu doortay oo mas'uuliyadda loogu dhiibay maanta waa wada ognahay dowladda federaalka ee Soomaaliya hoggaankeeda maanta jooga wixii shalay markii hoggaanka ay qabanayeen lagu wareejiyay oo loo dhiibay maanta in aanay haynin dowladda federaalka ahayd iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ahaa maanta isma hayaan dadka Soomaaliyeedna aad ayay u ogyihiin labadii aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya golaha shacabka iyo aqalka sare ayaguna isma hayaan haykalkii dowladnimada marka sidaas uu kala joogaa arrintaas waxay u sii xanuun badan tahay waxay tahay hoggaankii dadka inuu isku hayo hay-adaha dowladda inuu isku hayo horumariyo la rabay inuu yahay midka sababta u ah maanta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay kala taagnaadaan labada aqal ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay kala taagnaadaan Soomaalidu waxay ku maamahdaa ninku dilay har kuguma jiido 4 sano wax gabagaba sii ah xilligii dowladdan la doortay ee xileedkeeda ahaa maalin maalmaha kamida doorashada sidaanay tahay sidaana la yeelayaa dadaalkaana laga galayaa Soomaaliya aan doorashadii sidaas maxay idin la tahay maxaan ugu haboonon qabana qawaaniinteedii iyo hawsheeda waa sidaan maalinna ma ayan dhihin maanta oo ay doorashadii xilligii loogu talagalay bilowga ahayd oo baarlamaanka in la doorto ahayd ay 100 maalmood wax ka yar ay ka dhiman tahay weli lama garanayo jawaab looma hayo su'aalo badan oo doorashada la xiriira inay dhacayso waqtiga ay dhacayso nooca ay tahay cidda maamulaysa lama garanayo nasiib darro weyn oo ummadda Soomaaliyeed soo wajahday waay laakiin ummadda Soomaaliyeed culaysa taas ka badan iyo mashaakilaad taas ka badan soo wajahay oo ay ka soo gudubtay aadan ugu kalsoonahay tan inay ka gudbayso hoggaanka dowladda maanta jira waxaan kula dardaarmaynaa ama ku dhiirigelinaynaa inay ifafaalaha suuban ee isdaba socda ee baryahan soo dhacayay ee ayagu aanay mas'uulka ka ahayn in ay walba aanay ka gaabin inay taageeraan shalay qayb kamida baarlamaanka ayaa baaq jeedisay dadka Soomaaliyeed oo wada istaagay waa wada taageeray maanta dowladihii xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa dhuusa mareeb isugu tagay ku shirayo dowladda hoggaanka u ah inuu isugu yeero isu keeno isku hayo la'aantiis ayagu inta isdoonteen markay arkeen meesha xaal marayo ayay dhuusa mareeb isugu tageen waa bogaadinaynaa waa hambalyaynaynaa waa tallaabo bilow ah oo dhinaca saxda loo qaaday aanan hubo
haddii lagu sii dadaalay in ay guul weyn oo aad iyo aad u ballaaran ay ka imaan doonto. waan ku bogaadinaynaa madaxda dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda iyo maxaanku irahdaa dowladahoodu inay isugu tageen dhuusamareeb oo ay bilaabeen madashaas ama gogoshaas ay ku aruureen kuna tashanayaan. waxaan filayaa inay ka soo baxdo mid horseeda dadku inay tashadaan, wada tashigu intaas kasii ballaarto, saamilayda siyaasadeed oo dhan oo ay ugu horeeyaan xisbiyada siyaasadda ay maxaanku irahdaa ka wada qayb galaan. hogaanka dalkana waxaan leenahay ha ka daahinina. dowladdu federaalka ee Soomaaliya iyo hogaankeedu inay ka waantoobaan, caqliga u soo noqdo, wixii ay sameyn jireen iyo wadadii ay sameyn jireen wada aan ahayn inay hadda cabiraan in loo baahan yahay. waan soo sheegnay wixii hore khilaaf iyo kala qaybsanaana ka dhalatay. shirkaas bilowday maanta oo Soomaalidu ay saa u soo wada eegaysa ee dhuusamareeb ka socdo, waxaan rajaynaynaa inaanay carqaladaynin oo aanay tashwiish ku furin, oo aanay ka gaabin, oo aanay ka daahin. haddii ay intaa ka dhowrsan waayaan, dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ama madashu ay u sheegaysaa cawaaqibka ka dhasho tallaabada dowladda dhexe ay Muqdisho ka qaado iyo go'aanada siyaasadeed ama dhaqanka siyaasadeed oo ay la yimaadaan, mas-uuliyaddeeda ayaga unbaa qaadayo. cid kaloo la qaadayso la wadaagaysa male. ummadda Soomaaliyeed horteeda ayagaa mas-uuliyaddaas ku qaadayo. wixii dhibaato ay xumaan ay ka yimaado iyo lugooyo ay ka yimaado, ilaahay hortiina ayagaa ku qaadaya. hadallada ay ku dhawaaqeen oo markii de aada loo nuxur eego, hoos loo eego, weli aan caddayn, laakiin kuwii ugu horreeya ka soo baxay ah, waxaan leenahay micneeya, sii fasira, dadka u sheega, wax aad ka wadaan caddeeya. wax badanoo muxuu ahay aanan la garanayn. dastuurka federaalka ee Soomaaliya iyo sharciga doorashooyinka ee madaxweynuhu uu xigtay waxay qorayaan 4 sano waaye mandate-ka madaxweynaha iyo mandate-ka xilli xileedka madaxweynaha iyo xilli xileedka baarlamaanka. 4 sano. 4 sano waatan aan sheegayno 100 maalmood ka yar ee bilowgeeda ay ka dhiman tahay. marka looguma mamarsiyoon karo. dastuurku wuxuu qorayaa waxyaabo kale. baarlamaankan waqtigiisa waa dhammaaday, madaxweynahana waqtigiisa waa dhammaaday, gabaabsi ku soo socdaa. labadaba waqtigoodu waa gabaabsi. ciddii bedeli lahayd baarlamaanka bedeli lahaa jidka ka wax asalkaana waa baarlamaanka. in baarlamaan la helo, baarlamaanku uu jiro, kan uu jiro oo shaqeeyo ilaa xilligiisa maalinta ugu dambaysa laga gaarayo, waa waxa anagu bariyahan aan isku dayaynay oo aan raadinaynay in labada aqal ee baarlamaanku isku yimaadaan ayagoo baarlamaankii ah. ilaan hadda waa aqal iyo aqale, ayagoo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan. waana meel fiican hawshaas maraysaa. mas-uuliyad weynaana ka muuqato hogaanka labada aqalba iyo rabitaan inay rabaan inay midoobaan. marka waxaan leenahay ayaguna waa dhiirigelinaynaa in ay aqalkii labadii aqal isu soo noqdaan oo baarlamaankii ou howlihiisii dib u bilaabo. waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda isagaa ummadda Soomaaliyeed xilka u dhiibatay, isagaa magaca ummadda Soomaaliyeed, golaha shacab baarlamaanka oo ummadda Soomaaliyeed wakiilka ah, isaga ayuu xilka u dhiibo doortay. waana ilaaliyaha constitutionka sida ku qoran dastuurka, ilaaliyaha dastuurka inuu isagu yahay. ha ilaaliyaan leenahay. dowladda guud ahaanna waxaan leenahay warkiina aad shalay sheegteen waa fiican yahay, laakiin sii fasira, wax ku sii dara. su-aalaha aad garanaysaan jawaab weli loo hayn, jawaab u yeela. madaxweynayaasha dowlad goboleedyadana waxaan leeyahay ayaguna gogosha waa bilow fiican, waana bilowdeen, waddo saxaad bilowdeen, ballaariya, ha isku ekaynina. haddii dowladda qaybeeda kala duwan tahay ugu yeera, hadday tahay saamilayda siyaasadeed oo kale xisbiyada ay ka mid yihiin ugu yeera, bulshada rayidka ay ka mid tahay ugu yeera, waxgaradka Soomaaliyeed oo dhan ugu yeera, si un looga tashada arrintaas oo arrinta doorashada arrin noocay doonto ha noqoto. shardiga keliya ee doorashada xilligan haddii la soo gaaray oo waqtigan la joogo, shardiga keliya ay leedahay waxaa waaye
nooc laysla raba inay noqoto lagu heshiiyey inay noqoto laakiin mid cagaaran iyo mid madow iyo mid gaduudan oo qolo gaar ah ayada ay jeceshahay ama ay ka dhex aragto maslaxadeeda iyo awooddeeda iyo powerkeeda ma aha midda shaqayn doonta islaha waa midda laga wada tashado la isla aqbalo waa soo dhaweyneynaa waa bogaadigeynaa wada tashigaas gogashaas bilaabatay inay sii ballaarataan rajayneynaa guulo badanaan u rajayneynaa dowladdana mar kale waxaan u rajayneynaa iyaduna tubta toosan in ilaahay tusiyaan u rajayneynaa iyo hoggaankeedaba tubta toosan in ilaahay tusiyaan dadka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar waan ku kalsoonahay in ay dhibaatada iyo duruufaha adag iyo markastoo shaki la geliyaba inay awood u leeyihiin inay ka baxaan shakigaas oo ayna uga baxaan si nabad ah mar walbana si nabad ah ayaan ku caanamaali jirnay haddana ayadaan ku caanamaalayna aad iyo aad u mahadsantihiin